يا يفتيك أنا برنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataa casharkagana 11aad ee taxanaha oo ka mid ah maadada naxwaha af Ingiriiska. casharkii la soo dhaafay waxaan isku dirnay layligan, xalka ama jawaabtana waa sidaan. waxaynu maanta dhammaystiri doonnaa oo aan diiradda saari doonnaa labada magacyaalka ee haray. haddii aad la idmo casharkan kadib waxay noqonaysaa barashada magacyaalka waa dhammaysay. nooca ugu horeeya waa erayadan me, you, him, her, it, us, them. erayadan waxaa lagu magacaabaa object pronouns ama objective pronouns. labada magacba waa sax, micnahooda waa magacyaalka lafalaha. marka sidoo kale diiradda saari mayno magaca sharaxaadiisa, laakiin waxaan xoogga saari doonnaa magacyaalka isticmaalkooda. okay, marka hore waxaan ku siinayaa erayadan tarjumaadooda oo qaab fudeed ah, kadibna waxaan si faahfaahsan kugu sharxi doonaa tarjumaadooda. ugu horeyn, ereyga me micnihiisa waa ani ama aniga. tusaale ahaan, waxaan af Ingiriis ku dhahayaa aniga ayay i jeceshahay, waxay noqonaysaa she loves me. sidoo kale markaan af Ingiriis ku iraahdo aniga ayay i caawinayaan, waxay noqonaysaa they help me. hagaag, ereyga you micnaheeda waxaan horay u soo dhiganay. you laba macnood ayay leedahay, micno keli ah iyo micno kooxaysan. waxaan ula jeedaa you micnaheeda waa adiga iyo idinka. tusaale ahaan, waxaan af Ingiriis ku dhahayaa waxaad tahay saaxiibkay, marka waxay noqonaysaa you are my friend. sidoo kale markaan af Ingiriis tusaale ahaan ku iraahdo waxaad tihiin saaxiibaday, waxay noqonaysaa you are my friends.